gobolaha alla dhaladsana hidda dhaxaalayo shacab dhiirano wada jira dhammaan dhibta neceb laha dhaqanaha Puntland dhul wanaagsana dhaqan gobolaha alla dhaladsana qaybta koowaad waa bandhig waxqabadkii dawladda Puntland oo dhameystiran qaybta kale waxa weeye waa buraanburo iyo gabayo iyo taariikh laga sheekeynayo oo sooyaalka Puntland qaybta kale waa fankii suugaantii qaybta kalena waa khudbadihii madaxda barnaamijkeena insha Allah waxaan gudaha galaynaa si toos ah haddana waxaan ku soo dhaweynayaa kelmadii guddiga qabanqaabada 1 Agoosto xafladeeda waxaana u yeerayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam golaha wasiirada golaha baarlamaanka haweenka ururada bulshada qaybahooda kala duwan taliska ciidanka saraakiisha ciidanka bahda saxaafadda dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh wax badan oo hadal halkan kama soo jeedinayno aniga oo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada xafladda 1 Agost aniga oo ku hadlaya magaca gudoomiyaha guddiga oo ah wasiirka howlaha guud mudane Cabdirashiid waxaan leenahay dhammaantiin ku soo iyo guddiga qaybihiisa kale kulligeen waxaan leenahay ku soo dhawaada xafladatan waxba kagama duwanaan doonto xafladihii hore sida aan wada ogsoonahay maanta Puntland waa 19 jirsatay madaxweynaha dawladda Puntland wuxuu magacaabay guddi heer qaran ah oo ka shaqeeya agaasinka xafladatan iyo isku xirka dhammaan gobolada Puntland si looga xuso xafladatan iyo jaaliyadaha dibadda sidaa li ajligeed waxaan leeyahay ummadda reer Puntland meel kasta ay joogaan farxad ku ciida farxad ku dabaaldega runaantii haddii aanu nahay guddiga qabanqaabada xafladatan caawa waxay noogu dhacaysaa xafladdu sidii xafladihii hore noogu dhici jireen waxyaalaha ugu muhiimsan oo xafladda caawa lagu soo bandhigi doonana waxaa ka mid ah waxqabadkii xukuumadda iyo hirgelintii mashaariicdii hirgashay oo ku hirgashay isku tashigii uu madaxweynaha dawladda Puntland uu u cilaamiyey dalka sida gadaasheeda ka muuqata waxa halkan ka muuqda sawiradii iyo waxqabadkii iyo mashaariicdii hirgashay oo ku hirgashay waxqabadka sidoo kale waxa la soo bandhigi doonaa fiideo ka sheekeynaya waxqabadkii dawladda sidaa li ajligeed waxaan leeyahay dhammaan ummadda reer Puntland farxad ku ciida waxaan leeyahay ummadda reer Puntland mar labaad iyo mar saddexaad ba anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca guddoonka agaasinka xafladda 1 Agost ku soo dhawaada xafladda 1 Agost gacmo furan Puntland waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar waa mahadsantihiin aad baan ugu hambalyeynaa oo ugu faraxsanahay waxaana ka meesha leeyahay ay degmada ay qadiimiga waxay soo casutay gudoomiyaha ururka haweenka Puntland marwo khadra aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu hambalyeynaa waxaana leenahay ilaahay ayna ku guulay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahow belad ma tadbirnagaaga jabi ilaahow belad ma tadbirnagaaga jabi ilaahow burcadnabada muslimiin bogooda mari ilaahow badayo beriga noogu yeedhan ilaahayow beralkina hareer hanagu balayn ilaahowna badbaadiyo bexijaabna geli ilaahowna ugu beeg wanaagaaga baaxadale ilaahowna ugu beeg wanaagaaga baaxadale garsoorkiyo gola sharciyo geesiyaasha mudan garsoorkiyo gola sharciyo geesiyaasha mudan golaha baarlamaanka iyo ciidamada guntaday shacabku
qaybaha ku sida puntland waa gaamurto ku shibaan hantinay kugeeni 19 baa galgaal baxday gudoonkii dhaashadeenan garwaaqsanaa dhammaantiin gacalaha ugeed gurbaanka tuma adduunyadu heer bay hayaanu tahay adduunyadu heer bay hayaanu tahay dadku waxay hiigsanahayaan hiraan dhoweyn puntland himiladiyo hadafkeenu waa mid qura hirdooglayna baxahayaan hayaanku nahay hanadow cabdiweli hayaanku inoo hayaa hanadow cabdiweli hagaanku inoo hayaa ilaahow noo hiili wadaankeenna hodanka yeel haddii ay kooxda suuro geli weydo inay si fiican noogu tunto waxaan u arkaynaa inaad nagu xumaynaysaan samicada iyo bahalaha aad baysataan haddii inaad dhigaan iyo maslaxo maasha allah waa puntland waa faysadeennii waa maalinteennii waa maalintii puntland hala iscaawiyo haddii kala samicadaynaanu doonanaynaa wasaaradda warfaafintu qalab badan bay leedahay dad badan baa hoos yimaada dadka oo hogaamiyihii dalkaanu nahay waxaa weeye
islaamka qof waliba isaga meesha uu ka leeyahay ka qaadanaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. حالي حاجة والله إنه صبيو مراد كنا الله سهل مسالكنا الله نكينا إله بار ما هذا له أنت تل وإسلام أنت إلهي سلوك كينا لما هاد بليه هاي وحنا دسور دوين يا حفلة عن قيمها له وكوضة أغسطس 19 jirkii Puntland intii soo agaasintay iyo intii soo ayidayna aad baan ugu mahad celinaya. intaa kadib waxa isweydiin leh waqtiga hadda lagu jiro waa 6 saac oo habeenimo. xafladuna waxa moodaa kow inay joogin ummadda haatan meesha joogtana ay muuqato tirsigeeda iyo tayadeeda in badan oo haatan ama boos weyday ama soo gaari weydana ay jirto. kalifaadda intaa leeg wixii keenay ayaa isweydiin waxay tahay dhisidda Puntland ama jiritaanka Puntland qaymaha ama ay reer Soomaaliya u leedahay ama reer Puntland u leedahay sida laaligeeda ayaa keentay miisaaniyadda intaas leeg iyo ummadda intaas leeg inay meeshaan timaado ama ay xilligaa ku soo gaarto. waxa weeye marka baadiyo waxay yidhaahdaan sanadka tegey haraatidiisa iyo kan soo socda hardidiisa ilaahu naga hay. sanad ayaa dhammaaday sanadna waa inuu cusub yahay. sanadkii tegey khayrkiisa Allah hayna siiyo kan soo socdana sharkiisa Allah hayna ka dabaalo. waxa isweydiin la marka maxaa inoo dhammaaday oo aynu bogaadinaa maxaa inoo qabyo ah oo aynu dhammaystirnaa maxaa inoo dhiman oo aynu bilownaa. wixii qabyo ah waxa laga qaadanayaa ayaan qabaa sanadka dhammaaday oo hawshiisu socotay baa qabyada keenaya. dhammaystirka iyo bilowgana waxa wax ku leh qaybna ka qaadanaya sanadka cusub. waxaa loo baahan yahay marka reer Puntland galaha aynu joogno miisaaniyadiisa tirsi ahaan iyo tayo ahaan waynu aragnaa. sida aynu caawa xilligaa u soo jeedno ama intaa u leegnahay una danaynayno waa inayna ka muuqataa ayan noqon waxa la yidhaahdo waa gala kaga kac. hadday inteennaas oo wakhtigaa u dhuminnay qaymahaasna ayna la leedahay waxa ay abbaartu tahay aynu ku xisaabtanno waxaad ogaataan inaan waxbayna ka xumaanayn oo qof waliba sida rag ahaan iyo dumar ahaan dawlad ahaan iyo shibil ahaanba kaalinta kaga aadan shaqriimada dadakan ama Puntland uu ku qaato wixii kaga aadan inaan waxba xumaanayn. Soomaalidu waxay tiraahdaa far kaliya fool ma dhaqdo. qof kasta waxa ku aadani maxay tahay weeye qof jecel naftiisa dadkiisa dunyadiisa reerkiisa in dhibaato haleesho qof jecel ma jiro. qof waliba wuxuu jecel yahay inta uu mas'uulka ka yahay oo uu khaaska u ah inay dunya ahaan iyo dad ahaanba ugu fiican yihiin. intaasoo la badiyey oo la isu keenay weeye intaan marka danteedu iyo horumarku weelkuna guntu ka askumaa baa la yidhiyo waxay kasta oo ugu horumara waa inay noqoto nabadgeliyadu. haddii intaasaynaan layna ka helin
waqtiga aynu hadda u taagannahay iyo waxaynu isu sheegayno waxbaa qabyo ka noqonaya marka dawladda ee madaxweynuhu hogaaminayo ee waxaa looga baahan yahay lagana sugayaa wixii ay shalay xilka u qaaday ama u dhaaratay baa laga doonayaa waxay ila tahay waana u tirsan yihiin waana u tilmaaman yihiin siyaasad ahaan inta ay leeyihiin ama abbaartu tahay dadweynahana waxaa looga baahan yahay wixii baahidoodu tahay waxqabadkoodu inuu ka muuqdo haddii ayan ayaga ka muuqan ha la ogaado dawladdu inayan baahidiinna daboolayn dantiinnana wada kaafii karin dawladnimada aad maqlaysaanniina waa dadweynaha weeye haddii aan idinka laydinka helin waxa aad u baahan tihiin ama jeceshihiin ama noloshiinnu tahay inaydaan helayn ku xisaabtama waxaan marka leeyahay puntland maanta 19 bay jirsatay waxaan ilaah ka rajaynaynaa sharaf iyo qaymo inuu waqtiga iyo sanadka cusub inuu ku dhammaado iyada oo inta ka najaxsan kana qiimo weyn xafladuna inta ka sii qaalisan tahayna sanadka dambe loo dabaaldego ninkii ceelka marka galay biirtaahi wuxuu yidhi ninka geliyey war ii dhaqsa lahow oo ii dhiftin lahow oo ii dhugma lahow waxaa lagama maarmaana marka dee wixii iyada wax jiritaankeeda wax u dhimaya dhib u keenaya inaynu ka feejignaadno haddaynu nahay dadka reer puntland wixii jiritaankeeda iyo horumarkeeda ahna oo ay puntland ku taabagelaysana aynu ku dhaqanno waxaan leeyahay marka dee kollay caawa waxaan dareemayaa sanadkii hore intii ay xaaladdu ahayd caawa waxbaa ka dhiman anigoo aan haddeer intaas ii faahfaahinayn insha allaahu iyaduna waa iska buuxsami doontaa bay ila tahay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa inta tan sharaftan iyo xafladdan intii soo agaasintay dadkuna waxaa la rajaxayaa haddii alla idmo wixii qabyo ah wixiina ka qabyaana inaynu dhammaystiranno wixiina ka dhimanna aynu bilaabanno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa soomaaliya ayaan kelmad leeyahay soomaaliya ilaahay xakaar baa hayee ha ka qaado ilaahay samaheeda ha isu soo gediyo ilaahay waxaan ka baryayaa wakhtiga caawa aynu ku jirno kaa mid ka qaymo badan oo sidaan oo kale ah oo soomaaliya isugu timina inaynu ka qayb gallo baan ilaah ka baryayaa yeelkeede soomaalidu waxay tidhaahdaa ilaahu guursan ma yeehay gablamin oo coodan ma yeehay cayrayn oo camal falan ma yeehay cadaabin saddexdaa ilaah waa awoodaa baa layidhi laakiin kuma yeelo waxaan leeyahay marka soomaaliyay maanta waxa aynu ku jirro iyo wixii aynu soo marray waa ogtihiin dee waxaa loo baahan yahay inaynu ka baxno dhibaatada colaadda isdilka aan adduunkana ina anfacayn aakhirana aan ina anfacayn puntlandna waxaan leeyahay reer puntlandow maanta ama abaar baa jirta ama colaad baa jirta qof kasta oo reer soomaaliyaada ama abaari ha keento ama colaadi ha keento soo dhowayn iyo wax ku qabad buu mudan yahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan idinkula dardaarmayaa hawlka madaalo weli waa hogadii madaxweynaha iyo dawladda waxaan leeyahay wixii abbaartiinnu tahaa laydinka rabaa in dadweynahana ama waxaan leeyahay baahida jirta waxqabadka waxaa la rabo inay buuxiyaaniin idinka weeye haddaan idinka la helin
ceebtu waxa la yidhi waa nimay ku taaliya nin lagu tiray wixii idinka laydinka waayo cidna qabsan mayso lana heli mayo waxaan markaa hadalkayga kaga baxayaa wixii dhimanna waxay ila tahay waa dhammaystiranaynaa wixii dhammaystiranna waa bogaadinaynaa aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladda puntland madaxweyne ku-xigeenka golaha wakiilada golaha xukuumadda garsoorka mas-uuliyiinta dowladda federaalka isimada ciidamada qalabka sida ururada haweenka marti sharafka saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwey anigoo ku hadlaya magaca golaha wakiilada dowladda puntland waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan dowladda iyo shacabka puntland iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed anigoo ugu hambalyaynaya munaasabadda ballaaran ee 1 August taasoo ahayd markii dhidbada loo taagay maamulka dowladda puntland waxaan leeyahay hambalyo 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 sanadkiisa waxaan ilaahay ka baryayaa inaan ku gaarno nabadgelyo caafimaad horumar iyo badhaadhe anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda ballaaran waxaan hambalyo bogaadin iyo ducaba halkan uga dirayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee puntland oo la'aantood aanay suuragal noqoteen amniga kala dambaynta iyo horumarka aan maanta xusayno waxaan odhan lahaa halkudhigga iyo higsiga sannadkan soo socda inuu noqdo taageeridda taakulaynta iyo dhiirigelinta ciidamada qalabka sida iyo sii wadidda barnaamijka doorashooyinka puntland oo aan ugu bogaadinayo in dadku si fiican dhiirigelin badan ka helaan ku dhiiradaan inay wataan barnaamijkooda lagaga baxayo beelbeesha iyo qabyaaladda maanta waxaan xusaynaa 19 guuradii ka soo wareegtay dhismihii dowladda puntland taasoo ahayd markii ugu horraysay ee la yagaleelo maamulka lagu raadiyo midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed intii ka dambaysay burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya 1990 waxaan eebbe mahadiis ah in puntland gaartay ujeeddooyinkii loo asaasay kuwaasoo ahaa taabagelinta maamulka dowliga ah oo laga hirgeliyo gobollada puntland iyo raadinta midnimadii iyo qarannimadii soomaaliyeed iyadoo loo marayo nidaam federaal ah puntland muddadii ay dhisnayd waxay guulo wax ku oola ka gaartay dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga horumarinta arrimaha bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha taasoo sanadka ka dambeeya kor u sii kacaya cid kasta waa u muuqataa dimuqraadiyadda wadatashiga iyo isla xisaabtanka ka jira puntland waxaa taas suuro geliyey eebbe ka sukow shacabka sharafka badan ee puntland oo mar kasta u taagan taageerada iyo la shaqaynta maamulkooda dowliga waxaan rajaynaynaa inaan taas ka sii badin doonaan waxaa ammaan iyo bogaadin soo jeedinayaa golayaasha iyo madaxda dowladda puntland kuwii hore iyo kuwa hadda xilka hayaba oo soo hoggaaminayay muddadii ay puntland jirtay mar kastana u taagnaa gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah oo lagu horumarinayo nidaamka maamulka dowliga horumarinta arrimaha bulshada iyo nidaamka federaalka ah oo ka hirgala soomaaliya waxaan ugu baaqayay shacabka iyo dowladdaba inaan gacmaha isqabsanno kana wada shaqayno amniga horumarka dalka lana soo dhowayno cid kasta oo horumar ku soo kordhinaya puntland lana hanto horumarka kaabayaasha dhaqaalaha ee hadda soo socda iyo kuwa inoo qorshaysanba waxaan naga go'an sida mabaadi'da asaasiga ah ee dastuurka puntland qabo inaan hormuud ka noqonno raadinta iyo ka shaqaynta midnimada iyo qarannimada soomaaliya taasoo loo marayo sifo sharci ah
hase ahaatee puntland cidna gorgortan kala geli mayso xilka iyo waajibaadka ka saaran in ay dowlad federaal ah ka hesho xuquuqdooda dastuuriga ah ee siyaasadeed dhaqaale iyo kuwa arrimaha bulshada mana aqbali doonno in puntland lala simo ama lagu matelo meelo ama gobollo aan maamul dhabahi ka jirin xuquuqdoodana la carqaladayo waxaan ku soo dhaweynaya insha allah intii iga dambaysa madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynuhu horeeyaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha maxkamadda sare marwada koobaad brofesor hodan siciid iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan runtii aadka u quruxda badan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa xafladdeedu aniga mahadnaqoon bay u badan doontaa marka ugu horraysa inaan u mahadnaqo qabanqaabayaashii shirkan amin xafladdan soo qabanqaabiyey oo ugu horreeyo wasiir cabdirashiid maxamed xirsi iyo intii la shaqaynaysay waxaan kale oo u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida ee runtii inoo fududeeyey inaynu maanta goobtan ama barxaddan laydha badan quruxda badan inoo suurtageliyay inaynu isugu nimaadno iyadoo sidii loo sheegayba haddeer saacaddu ay taagan tahay 12:00 iyagana waan u bogaadinayaa dadweynaha sharafta leh ee runtii la'aantoodan xafladdu sidan u qurux badnaateenna waan u mahad celinaya haddii aan intaa dhaafo waxay la tahay xafladdan ilaa iyo 8 aynu soo bilownay haddii ay tahay suugaan haddii ay tahay filim haddii ay tahay khudbad intaba waa waxqabadkeedii iyo ammaanteedii iyo bogaadinteedii runtii waa lagu sheegay maqal iyo muuqaalba waa lagu haystaa anigu hal shay uun baan intaa ku darayaao wixii ka dhimanaa filimkaa iyo intii la yidhi wixii ka dhiman dee madaxweynihii baa jooga odhanaya laakiin waxaan rabaa inaan ummadda reer puntland mid u sheego puntland waa meesha keliya ee runtii aan qabo maamullada soomaaliya ka jira maanta ee horumarka baaxadda leh nooc kastaba leh ay ka socoto taana waxaa runtii keentay midnimada dowladda wada shaqaynta dowladda iyo shacabka iyo ammaanka sugan ee ciidamada qalabka sida ee reer puntland ay gaadheen baa taa ka markhaatiya waxaan leeyahay sidii horeba loo yidhi far keliya fool ma dhaqdo dowladda keliyihii yacni kuma fillaateen runtii haddaan shacabka reer puntland meel kastay joogaanba haddii aanay dowladdooda ku barbartaagnayn ka shaqaynta amniga iyo horumarka dalka waxaan jeclahay xafladdan iyadaa oo ku aadan 9 guuradii maalintii la aasaasay puntland inaan reer puntland meel kastay joogaan gudaha iyo dibaddaba inaan hambaliyo idhaahda marka ugu horraysa mar labaadkana aan ilaahay ka baryo in ilaahay inagu gaadhsiiyo sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash iyo horumar suban waxaan qabaa waa sidii la yidhi uu lahaa islaan ciise wixii sanadkii hore soo socday ee sanadkan dhammaadayna dee waa lagu xisaabtamayaa waxaad ka arkayseen muxuuha sawirkii ama filimkii wixii bilaabmaya oo looba kuwa badan inay bilaabmayaanna allahayna gaadhsiiyo waxaynu ku qabsan karnaana waxa weeyaan innagoo midnimo iyo iskaashi iyo wada shaqayn la nimaadna taasna reer puntland waa lagu yaqaanaa aad iyo aad baan idiin salaamaya waxaan jeclahay khudbadda inteeda kale inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha hal shay uun baan ku daraya waxaan qiraya oo halkan ka qiraya waa markhaati furkii siyaasadda dowladdii waxay ahayd in ay laamiga dhaafto waxaad markhaati nooga tihiin inkastoo kulligiin aydan joogin aagashe laakiin markhaati waxaanu ka nahay inay gaadhay dowladda puntland meel kasta oo puntland ka mid ah horumarkiina ay gaadhsiisay taa lafteedu in la xuso oo la tilmaamo waa ay ku midan tahay waxaan rabaa inaan madaxweynaha soo dhaweeyo madaxweyne ku soo dhawow waddankan oo naftooda iyo maalkooda oo hura iyo dhidiskoodaba waxaa caawa sharaf weyn ah madaxweynaha puntland 19 guurada ka soo wareegtay asaaskii puntland inuu ku sharfo shahaado sharaf 4 xubnood oo muhiima oo shacabka reer puntland muhiim u ah
dhibaatadii dhacday abaartii guddiga dhiisha isaga dhigay qiimo weyn ugu fadhiya shacabka puntland waxaan ugu yeerayaa marka ugu horreysa guddoomiyaha guddiga abaaraha ahna madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin xaaji cali cadow madaxweyne sawirka waxaa kaloo sharaf weyn madaxweynaha oo ah inuu caawa halkan shahaado sharaf ku guddoonsiiyo doorkii laxaadka lahaa uu ka qaatay abaartii waddanka ka dhacday islamarkaana ahaa guddoomiyihii martida loo ahaa xilliga abaartu dhacday ee dadka soomaaliyeed ma aha reer puntland soomaaliya daba qaxday mudane cabdiqaadir siciid caarshe guddoomiyaha gobolka kirtaar soo dhawow waxaa kaloo u yeerayaa sheikheena da'da yar ilaahay khayra siiyo sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur shiikha waa arki doontaan waa nin dhalinyara waxaan qirayaa inuu boqol kasta oo puntland ku taalla cagtiisa dhigay miyi iyo magaalada magaca culimmada waana guddoomiyaha guddiga abaaraha ee dhinaca culimmada puntland sheekh fu'aad soo dhawow صعب يجلس دويه waxaa kaloo u yeerayaa shaksi caan aad u ah oo aad social mediaha aada uga barateen intii aan wejigiisa aqoonna caawa baran doonto waa guddoomiyihii hore ee gobolka mudug ahna mutadawac maxamuud yuusuf kaamaakiyey aada uga soo dhaweeye aad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa intii ka qabanqaabisay xafladda quruxda badan oo ay ugu horeeyaan guddigii qabanqaabada xafladda oo hogaaminayay wasiir cabdirashiid iyo shaqaalaha madaxtooyada waa ku mahadsantihiin shaqada fiican runta aad qabateen intiina kale ee ka soo qayb gashay ee wakhtiga u hurtay iyana aad baan ugu mahadnaqayaa gaar ahaan abwaanada iyo jilayaasha siyaabo kala duwan u cabirayay wanaagga iyo horumarka puntland quruxda puntland guubaaba iyo waad u jeedeenoo shubcaaba madaxweynuhu noqday laftigiisa marka runtii ayaga wixii aan oran kari lahaa runtii yidhi sugaanna ku cabbiray waa mahadsan yihiin sidoo kale waxaan mahad u jeedinayaa ciidamada qalabka sida horeba loo sheegay oo inoo suurtageliyey inaan nabad ku caweyno nabad ku dabaaldegno nabad isugu nimaadno nabadna ku hoyano aad iyo aad buu mahadsan yihiin sida la sheegay waa sanad guradii 19 ee aasaaskii puntland waxaan rabaa marka mar walba inaan xasuusnaano aasaaskan waxaanu leenahay dad aasaasayaala founders baanu leenahay waxaan ilaahay ka baryayaa intii dhimatay inuu naxariisto oo jannadii ka waraabiyo inta noolna aan u ducayno inay wanaag ay ku noolaadaan sidoo kale puntland jiritaankeeda iyo inay jirto
inay horu marto inay baraarto inay qurux badnaato dad badan ayaa dhiig u huray intii difaaceeda ku dhimatay sidoo kale waxaan leeyahay Allah u naxariisto oo jannadii ka waraabi waxaan rabnaa marka runtii inaan isweydiino dabcan Puntland inay asaasanto abuuranto ujeedadu maysan ahayn asaasayaashii Puntland dabcan ujeeday lahaayeen marar badan marka waxa weeye in aanu dib u milcisano aanu dib u eegno maxay ujeedada loo aasaasay hadafkii laga lahaa ma lagu gaaray weeye runtii dabcan waxaan wada qiraynaa dhammaanteen in hadafkii la lahaa lagu gaaray oo ahaa inaan maamul samaysano inaanu kala dambeyn samaysano in aanu annagu marka hore noqono nidaam jira dabadeedna aanu u guntano una sacyino sidii Soomaaliya dhibka looga saari lahaa sidii Soomaaliya dowladnimadeedii qarannimadeedii ay dib u hanan lahayd sidii wada jir iyo midnimo Soomaaliya lagu gaari lahaa waxaan isleeyahay Puntland dowrkaas ahaa inay ayadu abuuranto dhisanto horumarto gaamurto waa ay gaartay sidoo kale waxay gaartay in ay dhiig iyo dhacaan iyo juhdi iyo dadaalba u hurto in Soomaaliya dib u soo noolaato wax badan baa runtii la gaaray dabcan qurux badan baa muuqata Puntland waa qurux badan tahay runtii aad bay qurux badan tahay horumar badanna waanu ku talaabsanay Puntlandtii hore waxay dhashay Puntland cusub Puntlandtii hore waxay ahayd alla sukeeno dadka aanu midowno aanu qabiilka ka gudubno maamul samaysano Puntland cusub waxa weeye taasi hataa baqaado ha horumarto dhaqaalaha samaysato ha qurux badnaato waxa juudiga la wadaana taas ayuu ka tarjumaya بعرفنا مركا مرول با طبعا خلادات بدعية Puntland 19 سنة ay jirtay waxyaabo khaldamay waa ay jiraan waana wada ogsoonahay dhamaanteen waxaan rabaa marka wixii khalad oo dhacay oo mistake ahaa in aanu saxno si wanaagsan u saxno waxa noo hagaagsan aanu si anbaqaadno oo taabagelino waxa naga dhiman ognahay naga dhiman wax badan baa dalkan u dhiman iyana inaanu sidii aan ku gaari lahayn hadafkaasi aanu ku dadaalo anaga oo ku gaarayna midnimo iyo wada jir ayaa loo baahan hadda dawladdan jirta 3 sano iyo xoogaaga طبعا dhibaatooyin badan ayaa challenges badan ayaa jiro la kulanay haddaanu amniga ka soo qaadno waa la socotaano dalkan difaac buu u baahan yahay 3 sano ay markaan aan joognay waxaana soo maray dagaallo tiro badan dhammaantii waa ogti laba jeer ayaa gobolka Mudug dagaal ka dhacay shabaab ayaa isagoo boqolaal ah ka soo degay Suujiya Garmaal iyo Garaacad Daesh baa isku dayday inay qabsato dalkeena qaar ka mid ah shabaab iyo sharwadayaal ayaa buuraleeda galgala iyo meel ka mid ah ku maaragtay dhuumaalaysanaya loo baahan yahay inaanu ka saarno dariskeena waqooyi laftigiisu marka qaarkood dhibtiisu leeyahay oo la socotaan oo challengeska mar walba aan kala kulanay inuu wada ogtii waxaan idin sheegayaa marka dalku inuu ay Puntland diyaar u tahay inay difaacdo iyadoo intaasoo challenges ay jirto dhaqaale loogu talagalo lagu bixinayaan oo san jirine iyo cid nagu taageeraysa inaanu amnigayaga sugno inaanu shabaab la dagaalano haddaad eegtaan Puntland meesha ay ku taal wada garan kartaan strategically meesha ay ku taalo gateway-ga yani waxa la yiraahdo aqab nimanka la yiraahdo al-qaacida in the Arabian Gulf waxay joogaan baan u malaynayaa waxa weeye Yemen iyo wixii loo gaaro cidda difaaca u ah dalka Soomaaliya ee xigta
mar walbaaba dhibtaasi Soomaaliya ka xigsanaysa Puntland cidda isku haysa midnimada Puntland ee dhaxtaalka u ah waqooyi iyo koonfur Soomaaliya Puntland taas waxay keenaysaa marka challenges badan mid koonfur naga yimaada mid waqooyi naga yimaada mid bari naga yimaada intaba inay na saameeyaan waxaan u baahnay marka in sida hore ugu celceliyay dabcan cadawgaas tirada badan waxa looga baahan in looga gudbo midnimo uga gudubno insha Allah waan guuleysanaynaa dalkana waa difaacanaynaa waan horumarinaynaa insha Allah taas ayadoo socoto oo aanu difaaca dalka ku dadaalayno shacab iyo xukuumadba ayaa haddana waxaan rabnaa inaan horumar samayno in kaabayaashana dhaqaalaha aan dhisano dabcan markhaataa ka tihiin dhammaantiin dalka waxaa ka socda horumar aan Soomaaliya meel ka socdo aysan jirin waxaa noo bilaabmaya dekado la ballaariyo waxaa noo socda garoomo caalami ah waxaa noo socda jidad waxaa noo socda haykalka dowladnimo oo horumaraya hadduu qolfoof ahaa cayilaya aad ogtihiin waxaan rabnaa marka horumarkaas socda dabcan nabadgelyadii uu ku socon lahaa inaanu samayno taabagelintiisii iyo hirgelintiisiina dabcan falkii reform noqdo dawladdu kaliya ma samayn kartee waxaa loo baahan yahay dad shacab iyo dawladba in aanu u istaagnaana la ka raba waxaasoo mashaariic oo jidada iyo dekadaha iyo aerobortooyina socdaahay iyo dhismayaal dawladeed waxay ku yimaadeen isku tashi waxay ku yimaadeen inaan aaminay inaan wax qabsan karno ilaahayna tala saaranay waana inoo hirgasho sidoo kale waxaa socda taabagelinta dawladnimo waxay u baahan tahay isbedel joogto oo socday u baahan tahay waxay u baahan tahay cadaalad oo ka shaqeyno waxaan u baahannahay shaqaalaheena tayadiisa iyo tiradiisaba in aanu dib u eegno waan la socotaano horumar baaxad leh ayaa ka socda tirakoobka tayeynta iyo horumarinta shaqaalaha aad ogtihiin dhanka kale waxaanu ku baaqnay mar hore in Puntland ay hesho cadaalad shakhsiya iyo cadaalad deegaan dadku inay u sinmaan adeega iyo xuquuqda inay u sameeyeen yihiin responsibility iyo mas'uuliyadana ay u sameeyeen yihiin taas ayaa keentay marka inaanu niraahno tuulada laadiga ka baxsan iyo caasimadu horumarku waa inuu sinaadaan ba laga rabaa in badan ayaa dawladdu aan hore loo gaarin ayay gaartay cadaalad gaarsiisay horumar gaarsiisay horumarinta bulshadana ay gaarsiisay waana wadaynaa inta Puntland dhamaanteed ay israacayso horuna marayso insha Allah waxaan rabnaa sidoo kale maadaama aanu in badan ku celcelinay hadafkeenuna uu ahaa dib u soo noolaynta Soomaaliya waxaan rabnaa Soomaaliya dabcan Puntland jasiirad kaligeed meel ku taal ma aho dib kastoo Soomaaliya haysatay innagana waa ay runtii na saameynaysa waxaa loo baahan yahay marka annaga oo sida gudayn baarlamaanku sheegay xuquuqda wax xaq aan u leenahay aan dhiibaynin ogna waxaanu ka rabno Soomaaliya dabcan Soomaalinimadu inay wax nagu kordhisaa annaga inay wax noo dhinto ma waxaan rabnaa marka taa annagoo indhaha ku hayna ayaan waxaan rabnaa Soomaalinimadii quruxda badnayd oo aanu naqaanay oo noorseedka u ahayn inaan dib u soo celino Soomaalidu waxay tiraahdaa bishu meesha ka dhalan jirtay baa laga eegaa in badan baa la soo eegayaa Puntland nabadgelyo haysataa horumar bay haysataa waxaan rabnaa mid la mid ah in Soomaalida inteeda kala hesho waxaanu jecelahay inaanu gaarno inaan walaalaheen la jeclaano inaan la raadino waa waajibna saaran weeye Puntlandna waa ay wadaysaa dib u soo noolaynta iyo qarannimada midnimada Soomaaliyeed waxaan rabaa marka sidoo kale waxaan ka iraahdo arrimaha hadda jira oo aanu ka rabno dawladda Soomaaliya ugu horeeyo dastuur wala socotaan waayaha waxa socotay dastuurku sidiisaba waxa weeye waa heshiis bulsho waa social contract waxa la rabaa marka contractkaasi waxa wada galayahay waa bulshadaas dhulkaas ku nool weeye waxaan u baahanay marka heshiiskaas bulsho sidii loo galay oo lagu heshiiyay in loo fuliyo
dastuurka cid gaara ma samaysan karto daban hadday samaysatan ayada isku dhaqaysee halkan cid kale la soo aadi mayso oo ka hirgelin mayso wax annagu aanan ku jirinin kow ka ahayn la soconin aanan aragtida iyada iyo fikirkayaga sababta waxa weeye fikir gaar ay qabtaa Puntland aragti ay ka leedahay jira Soomaaliya hadaf ka leedahay jira Soomaaliya nooc dawladnimo oo aanu ka rabno Soomaaliya ayaa jira ka ayaa rabnaa marka heshiiskaas bulsho inuu ku qoran yahay waxaan rabnaa marka in mar walba laga digtoonaado la iskana ilaaliyo in cid gaari ay si gaar ula cararto oo meel gaar la aado ka digeen insha Allah sidoo kale waxaan rabaa inaan in yar ka ilaahdo arrimaha democratization-ka Puntland muddo waa soo socotay waa qurux badnaatay horumar bay samaysay magaalooyin baa dhismay waad u jeedaan daabiyadihii 98 maanta inta ay leeyihiin caasimaday noqdeen waxaan rabnaa marka horumarkaas dhanka dawladnimada ah inay la socoto horumar dhanka ah dimuqraasiyadda iyo dadku in ay maamul ay ayagu codkooda wuxuu goyn karo uu samaysmo waxaan rabnaa inaan ka guurno qabyaaladda waxaan ka rabnaa inaan u guurno qarannimo wanaagsan taasna ma lama heli karo haddaan nidaamka dimuqraasiyadda ahi uusan hirgalinin waa la socotaan hadda guddigii doorashooyinku shaqo fiican buu hayaa meel fiican buu wax marinayaa gudoomiye shuuqa ee u dambeeyana waa taan dhaarinoo la doortay waxaan rajaynaynaa guddigu inay hawshaasi si wanaagsan u gutaan waajibaadka iyo wanaagga laga rajaynayana ay runtii ay sameeyaan ayaan rajaynayaa ugu dambeyntii waxaan leeyahay Puntland ha guulaysato Puntland ha horumarto sanadkiisa dambe ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan ku gaarno horumar midnimo wadajir iyo amnigeena iyo dalkeena aan ku faacno